ma jiraa madaxweyne aad dhihi lahayd maanta ha la doorto? saan ognahay Soomaaliya maalmo kadib madaxweyne ayaa la dooran doonaa. ma jiraa madaxweynahaas dhihi lahayd madaxweynahaasa fiicane ha la doorto? su-aashaas maantana ka jawaab insha Allah tacaala. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. walaalahay darsi jacel meel adduunka aad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa idiin salaamay salaanta islaamka idinku salaamay meel walba adduunka aad ka joogtaan. ilahay darsa idin jeclahay. soo ogtihiin aniga ma jecli siyaasadda inaan ka hadlo, ma ahina dhahay xaraam in laga hadlo ama laakiin maba aqaan aniga waxaan aqoonin ma rabin inaan ka hadlo. su-aalaha jirta marka oo soo noqonaysa la dhahayo kale madaxweynaha ugu fiican oo maanta la dooran lahaa ayaa waaye hebel miya hebel miya hebel miya hebel miya magacayaa la sheegaa. madaxweynaheena maanta dooran laheyd haddii Axmed ahaan maanta awood u lahaa laheyd inaa maanta magacaawdid qof kee magacaabi laheyd ama kee dhihi laheyd ama kee noogula talinaysaa inaan doorano. ummadda Soomaaliya waxay rataa qof hogaamiye u baahan tahay, waddankiina badbaadiyo, dadkiina badbaadiyo, sharaftii iyo hiibadiina soo celiya. qofkee waaye qofkaas marka waxaan rabaa marka inaan idiin sheego. marka hore shacabka Soomaalida waxba gacanta uguma jiro haddaan runta sheegno. niman lasoo doortay oo baarlamaan ayaa joogo, nimankaas ayaana dooranaya madaxweynaha dooranaya. ama jeclaaw ama ha jeclin, fad ama ha fadin waaye waxaa gacanta ku haysid ma laha. ma ninaa laguu soo doorana baarlamaanka ina adiga soo dooranina laga yaaba. kuwa hor ninku mathalaayo waddankaaga mathalaayo magaalada mathalaayo ninkuu dooranayane ina adiga aadan rabinaa laga yaaba. marka doorashada bidaayadeeda koobaadba waxaa anaga shacabka haddaan nahay wax kornaa laga keenay waaye, kornoo lagu haysta waaye. marka meeshaan wax weyn oon ka bedeli karna ama aan ka buuqi karna ma wataala meesha. laana ninka baarlamaankana adiga ma geysanin, madaxweynahana adiga ma dooranaysid. one man one vote ma ahan. sidaa darteed marka inaan isku wareerino ama buuqa isugu ridno ama aan isku inkaarno ama isku cayno ama isku culeyno isku coleedayno ma ahan. kelmadeeda waa 3 qeyb waaye. qeyb shacabkay ku socota, qeybna baarlamaanka waaye, qeybta saddexaadna markii doorashada dhammaato ayay noqon doontaa insha Allah tacaala. waxaan rabaa marka inaan ka bilaabo qeybta koowaad oo ku socoto baarlamaanka. walaalaha baarlamaanka mathalo, shacabka mathalo, maanta kelmadooda ama codkooda madaxweyne cusub kusoo bixi doono ama kan joogo loo cusboonaysiin doono. waxaan rabaa inaan dhaho kelmadaada ammaano waaye, codkaaga ammaano waaye. qofkaa u malaynaysid inuu diinta badbaadinayo, ummadda badbaadinayo, waddanka badbaadinayo, kelmadaada sii. kelmadaada ha u gadin lacag lagu sii liajligeeda ha u gadin. wallaahi lacagta waa ka tegaysaa. kelmadaada iyo codkaagane waa lagu horumarinaa, aakhiray kuu jiraysaa, waa lagula xisaabtamaa. sidaa darteed ammaano aan kugu ogahay. ha u dooranin qofkan saaxiibkaa waaye, ha u dooranin qofkan isku magaalaa ka imaateen, ha u dooranin qofkan isku qabiilaa tihiin, ha u dooranin qofkan kursiguu ku siin doonaa. intaas dhan way tegaysaa. waxaa laga yaabaa qofka intaas ku dooratay beri inuu ku yidhaaho maca salaama ku yidhaaho uu kuu diidaa laga yaaba. waxna ma qaban kartid. sharaftaada iyo diintaadana waad gadday. qof xunna ummadda usoo saartay oo waxna qabanayna adiga inuu kugu soo jeestaa laga yaabaa. sidaa darteed markaa ammaanada ogow. saarabtid ku imaw meesha, hadda adigaa meesha joogtid. sidaa darteed calal aqal inta kuu dhiman hagaajiyo. qofaa u malaynaysid ummaddan iyo dadkan iyo dowladdan ummaddan iyo dhulkan iyo diinta wax u qabanayo u malaynaysid, u coday oo sii codkaaga. khayr allah ku siiyo. adduunya waa laga tagaa, lacagna waa laga tagaa, taas ogow. kelmadeyda qeybta labaad waxay ku socotaa shacbiga Soomaaliyeed meel walba adduunka ha joogaan, qurba joogta iyo dadka waddanka joogaba. waxaa lagaaga baahan yahay waxay tahay maanta waxaa waaye inaa u ducooysid waddankaas inuu ilaahay badbaadiyo, qof fiican uu ilaahay kugu dhiibo. intaasaa lagaa rabaa. maanta uma baahnid inaa meel soo istaagtid oo caytantid. caydaada wax laguma bedelaayo. maanta inaa meel soo istaagtid oo Facebook wax kusoo qortid oo Twitter wax kusoo qortid oo live soo gashid oo ummad aad caysid oo qabiile aad caysid oo qof aad caysid, waxba kuma bedelaysid, waxba kuma hagaajinaysid, waddanna kuma hagaagayo. sidaa darteed carabkaaga iyo gacantaada ilaali. khayr allah ku siiyo. haddii qof uu soo baxane
la soo doorto qofkaas ama jeclow ama ha jeclaanin isku qabiil noqda ama kala qabiil noqda qofka u jecleed ha noqdo ama qofka u nacbaneed ha noqdo haddii loo dhiibo aan u duceyno inuu ilaahay u fududeeyo intaasaa laga raba laakiin intaas la gaaraya khayr allaha ku siiyo haddaad awood u leedihid ninka ku mathalo waana ka shakisanay inaa awood u leedihid baarlamaanka aa ku mathalo haddaa awood u leedid inaa pressure garaysid oo isdhehaysid qofkaasaa ammaano leh qofkaas noo dooraa dhehaysid oo kale samey hadda maraykanka oo kale haddaa rabti inaa wax badasho qofkaa doorataa email u diraysa pressure saaraysaa hadalkaaga wuu qiimeynaa soomaaliyana saas ka jirinaa laga yaabaa sidaa darteed waxaa loo baahan haddaa awood inaa pressure garaysid pressure garay haddaadan awoodin inaa pressure garaysidna u ducooy qofka ugu fiican oo ugu munaasabsan inuu ilaahay noo soo saaro intaasaa laga rabaa qeyb saddexaad doorashada kadib ay noqon doontaa insha allah ilaahi subxaana wa taala haydin wada xifdi jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum wadaadka siyaasadu galo madaxweynuhu doorana madaxweynuhu sharaxa haliyana waanay ahayd khayr allah idin siiyo jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum fadlan usoo gudba kilibka walaalaha khayr allah idin siiyo ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa qofka ugu wanaagsan ugu saalixsan inuu ilaahi subxaana wa tacaala noogu dhiibo qofkuu raba ha noqdo qabiilkuu rabana ha noqdo ilaahi subxaana wa tacaala qofka 4 sano dambe qaban doono ilaahi ha ka dhigo qof saalix qofka jooga ha noqdo qof kale ha imaado qof aan la garanayn ha noqdo qofku raba ha noqdo qof aamin oo wadankana badbaadiyo ummadana wuxuu qabto dalkana wuxuu qabto allah ka dhigo aamin dhaha jazaakum allahu khayr baaraka allah fiikum ilaahi subxaana wa tacaala haydin wada xifdiyo jannada allah nagu kulmiyo soomaaliya allah u soo celiyo sidii ahaan jirtay si ka fiicanbo aamin jazaakum allahu khayr baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu